السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد يا آد بي فرح يا نو فرح قليسة وشرف نوتها هاي أنا جاي وفتك الصعداء إلى نسوق عدنو عندما تشيد هراء أو قيب كمدة أنا لا كرنا وحنودي سنده همبليو يجعل تويو يقدرين شعبي السومالي هيو مالا شوكتان بهداتين عندما قرنك أكل الدول وجوه ريا عيدك قرنكو ويسقوا حد كصاحرة هذا البدن قال بينه سلام يا إنه سأرجنه وسورة السنة حدينا أيان ونن مقالة كوانا هكان كالجعال أنا ذي قبنا أوجد يقدرين تقومضوا ذي هيسا عظمها وهي وحي وجيهين وحاو ترتان يا وحا قشان يا ظروفتها وش غيسان انت كذب ما انت الصومالي الان يا رجل هركن شو بدن كودا واي ارغا وافرتكي سنه قدام بي ciidan u soo hayay oo wixii ka dhacay geeska ogaa Soomaaliland maanta cid walba oo jaara dhinac walba haday bari tahay haday galbeed tahay haday waqooyi tahay haday koonfur tahay Soomaaliland hadaynu nin walba gacan nabadeed iyo walaaltinimo u taagayna ninkii inagu diida waliba waa kula barayna waxa warshadaha kaskanaar annaga dagaal iyo rabsho iyo hawl soo dhamaysanay rag nabad waxaan ahayn kuma haynaa bal cawd bilayso ninkii loo taag waayana dawaa suranaha abaalkii uu kor abadala hadii alla yiraahdo Puntland deris bayna hal qodob baynu isku haynaa kaliya oo aad loo xalin karo war Afrika xadkii Afrika ku dhisan tahay isticmaalka tagay xadkii Ingiriiska iyo kii Talyaaniga inoo dhaxeeyay Afrika oo dhan baynu la qabnaa waa sharci international haddii wax la kala qoonsadana si wanaagsan oo afaal loo dhameyn karaa waa inagu nacasnimo inaynu colaad galno dadkeena deegaanka isku midka ah oo dadku xero colaadad jooga waa khalad bar haddii la garanayo waxa la isku hayo iyo garteedu halkay tagayso iyo waxa adduunka dhan ka jira loo hayo inaynu cunfi iyo dagaal isu keenaa waxa ila tahay waa nacasnimo inagu mowqifkaas aynu taaganahay labadeennaba dhibaatooyin waaweyn oo inaynu ka wada shaqayno oo in haystaa jira waxaynu ka simannahay cimilada isbedeshay abaaraha waa ka simannahay dhibaatada dadkeenu qabana waynu ka simannahay cadow kale oo labadeena midna ogolayn oo inay dawladnimo carriga ka dhisata aan ogolayn oo wax walba baabiinayana waa jiraa oo simannahay markaa fariintan u dirnaa waxa weeye war annagu cidna duulaan kuma nihin waxaanu isu dilaana oon ku soo duulaana annagu ma garayno uma socono laakiin xadkii isticmaalka qaybiga Afrika oo dhan ay ka mid tahay ayuun baan leenahay noo joogayno oo walaalo aan wada shaqeyno fariintaasaan u diraya walaaladeenna Puntland kuwa ka shaqeeya Soomaaliya oo dhan intaasaan u diraya laakiin waxa dhibaato ka dhacday mar walba ninka xamar kursiga maalinta fadhiista ilaa uu dab ku ooga Soomaaliland oo colaad ka abuuro saligi maayo kuwa hore aan ogeyn xasan sheekhna shalay wixii uu ku hadlay waa wada baqasheen shalay xasan sheekh maba jiraan hadday doonayaan waxoogaa ay ku ceshaan saxiix buu ka sugaya hadal oo dhan waxaan filayaa taa inaanay Puntland la qabin dadkeedu dhul reebna la qabin iyo maxay ahayd galmudug kismaayana aan la qabin dadka jooga wixii macquul waayo dad waxa isku yahay maba nihinba taana halkaa u dhaafi maayo ninka hadalkiisa nin meel ka dhacay oo fidmo abuur manu qabaayo waxaan leeyahay war taasi socon maysa wax kala keen intaasina waa iga warguud dalku waa nabad idinkaana nabadda kale iyo ciidamada kale ummaduna waa idinku mahadnaqaysaa dhibtaa qabtaan ay dadku dheefsanayaan haddii daara dhaadheer quruxda la dhisay haddii shirkadaha bilyaneer la sameeyey haddii jaamacada la abuuray ogaada dadka deyrka u ah dhibtaas oo dhan xoogooda iyo cimrigooda iyo caafimaadkooda lagu jooga waa idinka annagu idin ogsoonahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa salaantaa guud baanu ka nimid xagga nabad baanu idinka signaa inta kalena naga gaarsiiya waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi